بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا ودينا قلا سعودو ومالينما أربعة تاريخنا يكون بيغانتا سغالي لباتنكا بشا جنايو لبادا كن يلباتنكا كسو دوادا برنامج كي دول ميركا وركو هبين والبحلقانو كالات كلا سعودان وعال ميديا قضبادا نعاوا كسو قادم دونا برنامج كينا دول ميركا وركا وحا كميدا دولماد يدي مالين لها أها آدي جري قبل كقدو أو لها كيي إيو باريتانو لغو بادي قوبا وزير كي أمنيغا جوبالان أو كسعود مقالة مقدشو سنتر عبد الرحمن فرولeh oo ka digay in cunaqabateyn ee dawladda federaalka Soomaaliya ay saarto ismaamul goboleedka Puntland madaxa xukuumadda Galmudug oo loo doortay in uu noqdo madaxweynaha Galmudug ee garabka Ahlus Sunnah iyo isbedel kale oo ku yimid doorashadii madaxweynaha Galmudug ee garabka dawladda federaalka Soomaaliya Puntland oo maanta gubtay mandooriyihii ugu badnaa ee abid lagu qabto ismaamul goboleedkaasi daawadayaal wararkeena dibaddana waxa ka mid ah qareenadii u doodayay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo dooddoodii soo xiray xilli ay soo bixeen xogo cusub oo culus oo ka dhan ah madaxweynaha dalkaasi iyo Qatar oo ka jawaabtay qorshaha Trump ee Falastiin iyo Israel lagu doonayo in lagu heshiisiyo daawada waxay naga xusuusinaa haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay iyo barnaamijyada aan halkan ku soo gudbino sidoo kale aragtidaada nala wadaag oo qaybta commentiga ku soo qor waxyaabaha aad isleedahay waxay ku haboon yihiin in la soo gudbiyo waa tahay daawadayaal iminkana ku soo dhawaada warkeeni oo faahfaahsan duulimaadyadii diyaaradaha ee sida maalinlaha ah uga bixi jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee aadi jiray gobolka Gado ayaa saaka la hakiyay iyadoo baaritaano ay ka socdaan magaalada Muqdisho ka oo lagu baadigoobayo wasiirkii amniga ee maamul goboleedka Jubbaland ila wareedyo ku sugan garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ayaa sheegaya in gabi ahaanba la joojiyay duulimaadyadii maalinlaha ahaa ee aadi jiray qaybo ka mid ah gobolka Gado sida Garbaharey, Luuq, Baardheer iyo Dolow wararka ayaa sheegaya in sababaha loo hakiyay ay ka mid yihiin iyadoo la baadigoobayo wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo shalay ka baxsaday dawladda federaalka Soomaaliya sida ay sheegtay taliyaha ku-xigeenka booliska Soomaaliyeed Zakiya Xuseen mid ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ayaa wacaal media u sheegay in ka diyaaradaha la geliyay aadi jiray gobolka Gado ay la xiriirto baxsadka Cabdirashiid Janan oo laga cabsi qabo inuu si qarsoodi ah ugu safro gobolka Gado sidoo kale lama oga in go'aankan lagu hakiyay diyaaradaha aadi jiray gobolka Gado uu si la mid ah u saameyn doono diyaaradaha aadaya magaalada Kismaayo inkastoo si caadi ah ay u socdeen duulimaadyada maalinlaha ah ee ka baxayay magaalada Muqdisho kuna wajahnaa magaalada Kismaayo dad fara badan oo saakay u socday gobolka Gado ayaa ay saameyn ku yeelatay joojinta diyaaradaha aadayay gobolkaasi sidoo kale waxa ay saameyn ku yeelatay xildhibaano ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo saakay u safri lahaa gobolka Gado markii garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay tageen lagu wargeliyay in hakad la geliyay duulimaadyadii aadayay gobolkaasi dawladda federaalka Soomaaliya ayaa 31 bishii Agoost ee sanadkii tagay ka xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Cabdirashiid Janan xilli uu ka yimid magaalada Kismaayo kuna sii wajahnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeysay Janan inuu geystay dambiyo ka dhan ah bani'aadanimada senator Cabdiraxmaan Maxamuud Farole oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe ayaa ka digay in dawladda federaalka Soomaaliya ay cunaqabateyn ku soo rogtay ismaamul goboleedka Puntland Farole oo ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in laga haboon yahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay isku daydo inay cunaqabateyn ku soo rogto ismaamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa sheegay in dastuurka dalka uu maamul goboleedyada u ogolaanayo inay maamushaan arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka waxa uu ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya inay ka dheeraato wax walba oo keeni kara khilaaf iyo isku dhac dhexmara dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay hantidii qaranka u adeegsanayso kala furfuridda dawlad goboleedyada ka jira dalka waa sida uu hadalka u dhigay fadda dhexana waxa waajib ku ah wixii laga hormarsan yahay inay ka qaadato kuna dhaqanto ama inay furfurto hadba karaanigi ama sargaalkii qayb jooga intay tiraahdo isaga soo kac tiir la bax muxuu ahaa tan haduntee sida haddaba dhacday oo agaasimihii departmentiga imtixaanaadka oo muxuu ahaa wasiirka تعليمته ودولة فدرالك أو قاتو سوى الطريقة اللي كنتوا كان قاتو فلسي مركب حلو فلسي أنا دول عقد الكل حيسواه مركب حلا أقبل كرمه وحكى لهم ماشي كم مغن إن لو رغمه باراجر فجي أقول كونتوناد
ayaa ku faanay in Puntland ay tahay hooyada waxbarashada ee Soomaaliya ayna tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay uga dayato nidaamka wanaagsan ee ay Puntland samaysay. senatarka ayaa sheegay in dooda Puntland iyo go'aankeeda waxbarashada ay u cugsatay dastuurka qaranka ayna tahay in lagu xishmeeyo. ugu dambeyntii senator Farole ayaa waalidiinta ardayda sugaya shahaadada ugu baaqay in ay dulqaataan isla markaana xal degdeg ah la heli doono loona heli doono khilaafka ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland. dowlad goboleedka Puntland ayaa Arbacadii ku adkaysatay inay qaadi doonto imtixaan sanadeedka isla markaana shahaadada laga doonayo inay bixiso wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa loo doortay madaxweynaha Galmudug ee garabka Ahlus Sunna wal Jamaaca kadib codeyn ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Sheekh Maxamed Shaakir ayaa waxaa doortay xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ee shalay la soo dhisay waxaana la sheegay inay la tartameen laba musharax oo markii dambe ka tanaasulay doorashada. xildhibaanada ayaa tanaasulka kadib codeynta gacanta ka dhigay kuna doortay Sheekh Maxamed Shaakir inuu noqdo maamulka Galmudug madaxweyne. kuwii ka soo baxa waxa loo doortana Ilaahay uu naga dhigo. runtii dadku markii maalan la doorto oo dadku mas'uuliyadda ay saartaan waxyaabo badan ayay sheegaan oo waxaasan qabanayaa la yiraahdo. laakiin waxaan leenahay waxqabadka aan qabanayno wixii hore u jiray inaan adkayno. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhinaca kale guddiga doorashada madaxweynaha Galmudug ee garabka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in muddo 3 maalmood ah dib loo dhigi doono doorashada madaxweynaha. doorashada oo uu qorshaheedu ahaa inay dhacdo maalinta Khamiista ah ayaa hadda laga dhigay maalinimada Axadda ah ee 2 bisha Febraayo. guddiga ayaa sheegay inay go'aankan qaateen kadib codsi uga yimid gudoomiyaha baarlamaanka ee garabka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Nuur Gacal iyo qaar ka mid ah musharaxiinta maanta khudbadda ka jeediyay baarlamaanka Galmudug. hase yeeshee ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay Wacaal Media in dib u dhigistan ay timaaday kadib markii beesha caalamka ay ku cadaadisay dowladda federaalka Soomaaliya in aysan qaban doorasho hal dhinac ah oo aanan loo dhameyn. qoraal ay shalay soo saareen saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladihii ugu dambeeyay ee ka soo ifbaxay Galmudug intii lagu guda jiray marxaladihii gabagabada ee dadaalkii socday bilaha ee lagu doonayay in maamulka loogu dhiso Galmudug. doorashada ayaa waxaa diiday musharaxiinta mucaaradka ah oo sheegay in nidaamka ay wax u wado dowladda federaalka Soomaaliya aysan ahayn mid doorasho lagu gali karo. Puntland ayaa maanta meel fagaaro ah oo ku taala waqooyiga magaalada Garowe ku gubtay maandooriye gaaraya ku dhawaad 30,000 oo dhalo oo qamri ah iyo 30 kiilo oo xashiish ah. maandooriyahan ayaa lagu sheegay in uu yahay midkii ugu badnaa ee abid laga qabto gudaha Puntland waxaana in gacanta lagu soo dhigo ka qayb qaatay dad muwaadiniin ah oo bixiyay xogta qamrigan. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Nugaal Muumin Cabdi Shire ayaa sheegay in booliska ay ku raad joogaan 16 qof oo ku lug lahaa maandooriyahaasi. maandooriyaha xadkaas leeg oo waliba intii ugu badneed oo gobolka ah in halka lagu soo bandhigo laguna gubo dadkii waxa ka shaqeynayna qaybna ay xiran tahay intii kalena lagu daba joogo la soo qaban doono sharciga la horkeeni doono. waxaan rabnaa Ahmed Caliyo laabaha amniga gobolka oo runtii shaqo fiican haya. mas'uuliyiinta Puntland ayaa sheegay in dhawaan la soo saarayo bayaan cadeynaya in la toogto cid kasta oo maandooriye lagu soo qabto kuna sugan maamulka Puntland. halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa Wacaal Media. kooxda qareenada ee difaacaya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo gabagabeeyay doodoodii ku saabsanayd dacwadda ka dhanka ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee ka socotay aqalka Senatka iyagoo masraxa u baneeyay 2 maalmood oo su'aalo weydiin ah. xiritaanka dooda ayaa timid xilli ay sida bambadii u qaraxday xog xasaasi ah oo ku saabsanayd in taliyihii hore ee amniga qaranka John Bolton uu qorayo buug cusub oo xaaladda ku sii adkeyn karta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Mr. Bolton ayaa lagu soo waramayaa inuu qorayo buug cusub una qoraaladiisa ku dareeyay madaxweyne Donald Trump iyo sidii uu ugu lug lahaa in uu Ukraine ka hakiyo lacag la sheegay in lagu caawinayo militariga dalkaasi. xogtan la shaaciyay ayaa awood u siinaysa dalabka ay xisbiga dimuqraadiga ah ku doonayaan in marqaatiyaal la horkeeno golaha Senatka.
xisbiga jamhuuriga ah ee uu madaxweynaha ka tirsan yahay ayaa diidan in loo yeero dad markhaati ka fura golaha hortiisa iyagoo inta badan ka walaacsan waxyaabaha uu sheegi karo Mr. Bolton. Dimuqraadiyiinta ayaa u baahan inay helaan 4 xildhibaan oo jamhuuri ah si ay golaha hortiisa u keenaan dadka markhaatiyaasha ah. warbaahinta dalka Mareykanka ayaa talaadadii tabisay in Mr. Pete McConnell oo ah siyaasiga ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga uu shir albaabada ay u xiran yihiin la yeeshay xisbigiisa kadib markii uu ka warhelay warbixinta la xiriirta Mr. Bolton isagoo u sheegay in xisbiga uusan haysanin codad uu uga hortagi karo markhaatiyaasha. qatar ayaa si taxadar leh uga jawaabtay qorshaha nabadda ee Falastiin iyo Israa'iil ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. qatar ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso dadaal kasta oo lagu helayo nabad waarta, hase yeeshee waxa ay ka digtay in taas lagu guuldareysan karo hadiiba ay tiri madaxweyne Donald Trump uu labada dhinacba si wadajir ah ula kulmi waayo. qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Israa'iil siinaya in badan oo ka mid ah wixii ay ku raadinaysay diblomaasiyadda caalamiga ah oo ay ugu weyn tahay magaalada Qudus oo aan la kala qaybin doonin. sidoo kalena madaxweyne Trump ayaa doonaya in halkaasi loo aqoonsado in ay tahay caasimadda dalka Israa'iil. qorshaha ayaa sidoo kale Israa'iil u ogolaanaya inay qaadato dhulka daanta galbeed ee ay ku dagaalamayso. qatar ayaa taageerta qadiyadda Falastiiniinta waxayna horay u martigelin jirtay hogaamiyaasha kooxda Xamaas ee maamusha Gaza. dalkan hodanka ku ah gaaska ayaa sidoo kale malaayiin dollar oo gargaar ah siiya dadka ku nool Gaza si loogu maalgeliyo warshadaha kaliya ee korontada ee ka jira daanta galbeed. qatar ayaa sidoo kale xulufo weyn la ah dalka Mareykanka waxa ayna martigelisaa saldhigga military ee ugu weyn ee ciidamada dalka Mareykanka ay ku leeyihiin gobolka Bariga Dhexe. daawadayaal intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkii dulmeerka wararka tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkiisa kale waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.